إنا لله وإنا إليه راجعون. وسارة waxbarashadii saynisku waxay tacsi tiiraanyada u diraysaa qoyskii qaraabadii ka baxay ardayga magaciisa la yiraahdo Cabdifataax Maxamed Xirsi oo dhigan jiray fasalka afraad ee dugsiga hoose dhexe ee Qoolcaday ee ka tirsan degmada Salaxley kaas oo ku dumay gidaar ka sii taagnaa dhismo hore oo qadiimi ah oo dugsigu lahaa oo laga guuray oo ay dumisay dawladda hoose ee degmada Salaxley kaas oo ay dhistay hay'ad la dhisay 2006 ayna dhistay hay'ad caalami ah. wasaaradda waxbarashada sayniskuna ay u rartay ardayda dugsiga dhiganaysay dhismo cusub oo loo dhisay. geeridan ayaa timi kadib markii uu maamulaha dugsigu isagoo kaashanaya dhalinyarada magaalada uu doonay inuu dumiyo gidaarka qadiimiga ah si uu uga hortago in waxyeello ka soo gaadho ardayda. balse nasiib darro wiilka yar oo ag taagnaa ayuu gidaarku ku soo dumay saana ku geeriyooday. sidoo kale waxa dhacdadan dhaawac culus ka soo gaadhay maamulihii dugsiga kaasoo xaaladiisa caafimaad lala tacaaliyo. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad saraacana siiyo. wasaaradda waxbarashada sayniska iyadoo ka duulaysa habraacyada badqabka ardayda iyo badbaadada ardayda waxay mar labaad iyo mar saddexaad faraysaa gudoomiyaasha gobolada degmooyinka maamulayaasha dugsiyada inay ka digtoonaadaan wax kasta oo halis gelin kara badqabka ardayda iyo hawlwadeennada dugsiga. sidoo kale waxa reeban in wax lagu dhigto dhisme aan wasaaradda hawlaha guud ogolaansho ka haysan. ugu dambeyn wasaarad ahaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhibka dhacay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu tacsi tiiraanyada u diraynaa qoyskii qaraabadii oo ardaygaasi ka baxay. waxa kale oo tacsi u diraynaa ardaydii macallimiintii iyo guud ahaan bahda waxbarashada oo Cabdifataax uu ka tirsanaa.